iyadoo maanta lagu ballansanaa inay doortaan xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama maayarka cusub ee magaalada Boorama iyo weliba ku-xigeenkiisa waxaa maanta kalfadhi iskugu yimaadeen xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama waxay maayarka cusub ee magaalada Boorama u doorteen Maxamed Axmed Warsame Baradhe halka maayar ku-xigeenka magaalada Boorama ay u doorteen Yaasiin Daheye Oomane waxaana ugu horeyn natiijada doorashada ku dhawaaqay Maxamuud Sheekh Ibraahim Tube oo shir gudoominayay shirka golaha deegaanka ee degmada Boorama tahay bisha 17 Juun waxaynu qabsan doonaa doorashadii golaha deegaanka aan ku dooraneynay gudoomiyaha degmada Boorama iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaynu bilaabi doonaa doorashada hadda waxaanu sheegaynaa cidda ku guuleysatay jagada maayarnimo ee degmada Boorama waxa jooga fadhigan 7 xildhibaan 7 waxay u codeeyeen Maxamed Axmed Warsame inuu noqdo maayarka degmada Boorama sidaas oo kale waxa ku guuleystay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorama Yaasiin Daheye Oomane inuu noqdo maayar ku-xigeenka degmada Boorama dhanka kale barasaabka gobolka Awdal oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaynu hambaleynaynaa maayarkeena cusub Maxamed Axmed waxaynu hambaleynaynaa maayar ku-xigeenkeena Mr. Oomane waxaynu leenahay Ilaahay ha idinku garab galo xilka la siiyay inta inaga maqan intiina joogtaba waxaan leeyahay guul iyo nasri baynu idin rajaynaynaa tawfiiq wanaagsan isku duubni iyo magaaladeennu wada shaqeyno yaqiinteenu waxa weeye inaynu Boorama wada shaqeyno sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maayarka cusub ee magaalada Boorama iyo weliba ku-xigeenkiisa waxayna yiraahdeen waxaynu taalo wada dheer insha Allah waxa lagu tartami doonaa horumarka annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqono kuwii qaada sidii horumarkaasi ay noo gaari lahayn waxa 13 xildhibaanba waa walaalahay inta maqan iyo inta joogtaba shaqada noo taalaana waxa weeyaan sidii degmada Boorama ay nooga dhigi lahayn mid horumarta Boorama maanta uma baahna cid u abtirisa waxa u baahan tahay cid wax u qabata insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka la doortay ee 13 xildhibaan ay noqdaan dadkii wax u qaban lahaa waxa kaloon fariin u dirayaa saaxiibaday xildhibaanada naga maqan waan ogahay 13 xildhibaan ee soo baxay dad aad ugu kalsoonahay weey dad ay ka go'an tahay weey degmadani wax loo qabto iyagana waxaan filaynaa wada shaqayn fiican kulli waa niman hadii aqoon la yiraahdo hadii karti la yiraahdo aan filayo inay yihiin dad wax ku soo kordhin kara degmada ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay nagu asro xilka Abshakuur Maxamed Ali 5TV Boorama